ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa la wareegay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo in muddo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka nafla caariga ah ee Al-Shabaab. ciidamadan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa banaanka degmada Aadan Yabaal iyagoona ka cabsi qabay inay waxyeeleyso miinooyin ay Al-Shabaab ku aaseen gudaha degmada Aadan Yabaal. wasiirka wasaaradda amniga maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in ciidamada si nabadgelyo ah ay kula wareegeen degmada Aadan Yabaal kadib markii Al-Shabaab maalmo ka hor isaga baxeen deegaankaasi. wasiirku waxa uu sheegay in ciidamada ay hadda howlgallo guud ka wadaan xaafadaha degmada Aadan Yabaal isla markaana uu sii socdo howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa sheegeen inay fashiliyeen dhowr miino oo kooxda Al-Shabaab ay ku aaseen gudaha degmada Aadan Yabaal. degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ahayd fariisintii ugu weynaad ee maleeshiyaadka nafla caariga ah ee Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe. Al-Shabaab waxa ay maalmo ka hor afduub ku wateen dadkii deganaa degmada Aadan Yabaal iyagoona ku qasbay inay u raacaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan. dadka falaqay arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay qabaan in Al-Shabaab oo laga saaray degmada Aadan Yabaal ay hordhac u tahay in guud ahaan Al-Shabaab laga saaray gobolka Shabeellada Dhexe. ku soo dhawow kooriska maqal iyo muuqaal. kooriskani waa kooris lagu baran doono hagaajinta maqalka iyo muuqaalka iyadoo la adeegsan doono softwareka Premiere Pro iyo Socra softwareka Adobe Audition oo kamid ah softwarada caalamka ugu wanaagsan dhanka editing. qof kasta oo qaato kooriskan waxa uu awood u yeelan doonaa inuu diyaarsho muuqaal qurux badan kaas oo dadka daawanaya u sahlaya in ay si wanaagsan u fahmaan ujeedka muuqaalka. koorsadan waxa ka faa'iideysan kara qof walba oo doonaya inuu horumariyo xirfadiisa maqalka iyo muuqaal hagaajinta. faa'iidooyinka kooriska laga helayo waxa kamid ah 1 muuqaal tayeysan 2 عشرة كبدن 20 عشر oo qofku marka uu qaato awood u yeelan doono inuu hagaajiyo nooc kasta oo maqal iyo muuqaal. 3 project dhameystiran oo loo dirayo qof kasta oo qaato kooriskan. 4 barashada maqal hagaajinta. 5 barashada muuqaal hagaajinta. 6 shahaado cadeynaysa qofku inuu qaatay ama dhameystay kooriskan. waxa qaadan kara kooriskan qof kasta oo yaqaan aasaaska kombiyuutarka ama bilowga kombiyuutarka. qof kasta oo barta xirfadda video editing iyo sidoo kale audio editing waxa awood u yeelan doonaa inuu sameysto shaqo asaga u gaar ah. wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada. mahadsanidin.